dalkan waa dal aad u ballaaran ciidan yarna waa leeyahay marka dal ballaaran oo ciidan yar leh ciidanka yar oo qalabkiisu yar yahay oo cunaqabatay saarantahay kuma filna therefore waxaa laga maarmaa inuu ciidanku inuu kaashado waxa lagu xili karo khaas ahaan shacabkiisa marka taasa waxay keentay inuu shacabku uu kaashado oo ciidankiisa iyo shacabkiisa isla jira ay si tiradii looga baahnaa meesha ay uga soo baxdo marka taasa keenaysa in mataqaana iskaashiga iyo ciidamada isbahaysiga ay Soomaaliya raadinayso Soomaaliya waxay u baahan tahay runtii markii loo hadlo hadii la military ahaan lagula dagaalamo shabaab waxay u baahan tahay ciidan 80,000 ilaa 100,000 gaara marka shacbi loo baahnaadeen marka dawlad ajnabi loo baahnaad ciidanka xoog dalka Soomaaliya oo qalabeysan oo tiradaas lagu ku filayaa dalkan meel kasto kamid inuu amaan ka dhigo halwa waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliya in lagu baraarujiyo in la toosiyo dadka Soomaaliya inuu la shaqeeyo hay'adaha amniga qof kasto Soomaaliya inuu noqdo police qof kasto Soomaaliya inuu noqdo nabad sugid qof kasto Soomaaliya kuwa dibadda jir inuu noqdo ciidan oo markuu arko ciidamada u sheego hadduu asoo wax ka qaban karin inuu gudbiyo telefoon baa wada haysta markii uu gudbo yaraa meesha ay joogaan ciidanka talaabo ka qaaday ayaga laftigooda markay ogaadaan shacbiga Soomaaliya inay ku dhex dhuuban karin qasab ay ku noqonaysaa inay isdhiibaan waa meeshii ay ku dhamaanayso waxa arkayaan bas rajo kale ma leeyahay inay isdhiibto dawladda isku dhiibtay ayaguna waa dad Soomaaliyeed waa dadkeeniyo dawladdu u malayn maayo naxariis darro level gaas inay gartay hadii hal dil ma dhahayso rehabilitation waa loo soo rehabilitation baa loo soo dhaqan cilmi baa loo dadka waa dadkeeni moogtay dad ajnabi nagu ma aha waxa ajnabi kale waa iska carray laakiin dadkeeni dhalinyaradeeni in rehabilitation loo sameeyo loo sheego waa ay galinta inay ka mid noqoto war hadaa soo dhiibtid waxa way waa nabad galaysa in yiraahdo